السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan sameynayaa sabaayad ayaan sameynayaa. waa sabaayadii aan wax yar ka bedelay only insha Allah. waxaan sameynayaa sabaayad aan ka dhexda u gelinayo insha Allah hilib. hadda waxaan ku daray badhar baan soo kuleystaan ku darsaday. waxaan kaloo ku darayaa insha Allah caano boore yariisa ayaan ku daray oo ilaa iyo 2 qaado adigu ah. maasha Allah baarakallah. markaas uu ku soo baxo waan arkaynaa. ilmaha waxa way marmar inaan qadada u bedelo waaye runtii. marka just burkii iyo badharka iyo caanaha isku walaaqaya. markaysay ku soo baxdo insha Allah waan arkaynaa biidnillaahi kariim. idinkana ila socda walaalahayga insha Allah. waxaan ka codsanayaa share-ta iyo like-ta inaad noo saartaan. hadda milix yar baan ku daray, wax kale kuma darin. intaas baan ku daray insha Allah. waan xashayaa biyahan ku darayaa. marka gacantayda ayaan la gelayaa insha Allah. aan ku xashayaa marka siday noqoto ayaan arkaynaa. runtii aad baan u jiliciyay, wax jilicsanaan ka dhigay koos sabaayada intii la waxo la isku laalaabo ayaa tan ma la waxay oo hal mar baan kala bixinayaa ma la laabay insha Allah. ka arkayna wax yaraan u kaadinayaa inta ii jilcayso insha Allah. waa u jeedaan say tahay aad bay u jilicsan tahay. wax fiican sabaayada inay jilicsan tahay hadii kale la waxaadeeda ma ku dhibayso hadaa jilcisid. marka wax yaraan sugayaa adigu ilaa iyo 20 daqiiqo insha Allah. ka bacdi baan arkaynaa biidnillaahi saana ku soo baxday oo ku soo noqday already. saan bay marka iigu soo baxday maasha Allah baarakallah. waxaa moodaa yacnaha waa like doolshay noqotay. aad bay u jilicsan tahay waa u jeedaan jileec waaye. aad bay u jilicsan tahay maasha Allah baarakallah. la waxaadeeda waa easy. hadda waa la waxayaa marka ushaas dheer ushaan xalwada ku karkarsada waaye. ku la waxayaa biidnillaahi kariim. ila socda idinkana siday tahay walaalahayga insha Allah biidnillaahi kariim. inay la socotaan baan rajaynayaa maasha Allah baarakallah. in marba wax laga bedelo caruurta waaye. kawaatan waa easy waa sameysan kartaan. runtii aniga waxaan ka fiirsaday ida carab ah marka waan sameeyay. marka waxaan dhahay oo inta chapati ayaa dubataay balsaana u sameeyaan dhahay. marka anigan waa halka ku haystaa waa karooto iyo basal yar iyo hilib shiid. marka caruurta qayb ma cunto cheese-ka, qayb baa cheese-ka iyo cunta. cheese baan hadda tan ku darayaa oo ay jeedaan waa cheese-kii aan anigu soo xoqay oo aan ku xoqay birta caadiga aan ku soo xoqay. marka cheese-kan ku darayaa haddana saana u soo laabay. that's it easy. iyadaaba ka easy san sabaayada kale oo intii la laalaabo haddana hadhowna la waxaayo. haddana easy ka aan dhahay maasha Allah baarakallah. aad bay easy u tahay. ka wax walba in la try gareeyo waaye. qofna kuma dhalanin waana easy ba wax easy waaye maasha Allah baarakallah. gacantayda waxaan soo mariyay biyo yariisa kos hadii kale iga kala fuqaysa soo maaha. marka biyo yariisaan mariyay markaasaan marmarinaya waa qoynaya insha Allah. runtii dabkayga dab daciif waaye dab fiican ma haysin laakiin insha Allah waxaan ka cabsi qabaa inay iga furato saasan biyaha u mariyay. marka inay iga furanaan rabaa insha Allah biidnillaahi kariim. mal aan fiirino say noqoto marka aan dubo insha Allah. hadda isku dhadhajiyay dabkan saaraya. marka waan saaray already dabkii. runtii way iga dheeraatay wayba ka dheeraatay bahalkii aan chapatiga ku dubanayay. marka inaan isku soo celceliyay noqotay alxamdulillah. laakiin daana inay dhadhamiyay macaankeeda lagama hadli karaan dhahay. caruurtaydana maasha Allah way jeclaadeen. runtii basbaas yarna waan ku daray oo inay ka ilaaway. basbaas yar baan ku daray oo basbaaska cas ah oo ka qalalan baan ku daray wax yariisa. koos inta basbaas lahayn ma cuni karno Soomaha anaga dhadhanba ma laha runtii. saamisanaysaana iigu soo baxday maasha Allah baarakallah. waa u jeedaan sa iigu soo baxday. qayb waxaan ka dhigay saabul balaariyay. tani waa tan only waa hilib bas waaye kuma jiro cheese. marka tan kale ayaan cheese-kii ku jira iyada oo taas fiiriyo walaalahayga ma aragtaan maasha Allah baarakallah.
ma laga hadli karaan ini dhahay maasha allah. Jitaabiya ka wardoona waa easy, iyadaa ka hawl yar sabaayada kale, iyadaana ka nafaqo badan, hilib baa ku jira, qudrad baa ku jirta. maasha allah baarakallah. waxaan rajaynayaa inay walaalahayga ka wardoonaan insha allah oo ay ka heli doontaan. maasha allah baarakallah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan inii salaamayaa walaalahayga, waa mahadsantihiin. please share and like. thank you.